إماني بوليسكا Командир дал представителя. بالكي طريقة وكمو طريقة Он привез меня в Махкама. حالي كان محكمة Здесь поговорили, Махкама меня встретили хорошо. محكمة سيونا كسن أي يسولويسي. Я даже не думала, они сразу взяли меня под защиту государства. يعني waxay la wareegeen amnigayga iyo anigadan ayay la wareegeen. Я даже не ожидала, что в Сомали есть защита прав государства. Ma filanaynin Soomaaliya in uu sidaas lagu difaaci doono. Они меня в этот же день изолировали. Isla maalinkaasba waxay meel gooni ah ayaa ii geeyey. Обеспечили мне защиту и безопасность. Ammaankayga iyo ay la wareegeen. И сказали, не переживай, мы все твои проблемы решим и живо-здоров домой отправим. Waxay dhaheen dhibaatooyinkaadana waa xalinaynaa, wax dhibaato ma dhici doonaan, ha cabsani, waddankaadana waa lagu dilayaa. Я очень благодарна Аллаху, Ilaahay ayaa aad ugu mahadcelinayaa что в Сомали есть государство. in Soomaaliya ay leedahay dowlad. Я благодарна президенту, губернатору, всем чиновникам Сомали. Waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha dhammaan madaxda waddanka oo dhan. Я очень благодарна Махкама, Кази, вот директор адвокатуру. Я перед ними вот преклоняюсь. Waxay u mahadcelinaysaa maxkamadda guddoomiyaha maxkamadda baalkii iyo dhammaan shaqaalaha. И прошу Аллаха, чтобы этих людей он отблагодарил, чтобы у них было хорошо, чтобы Сомали был, как в Таджикистане, как в других местах, чтобы мир был, чтобы люди свободно, счастливо жили. Waxaan ugu duceynayaa in dhammaan maamulka in Ilaahay uu sugo in waddankiina uu noqdo wadamada caalamka oo kaleeto wax dhibaato aysan ka dhicin oo nabad noqdo. И вот они тогда решили все мои проблемы. Marka maxkamaddu waxay xalisay dhammaan problemyadeedii. Я благодарна Кази, Waxay u mahadcelinaysaa guddoomiyaha чтобы он предстал большой Кази Сомали. inuu sii noqdo xaakimka kan ka sii weyn. Всегда могли бы так взять, как мы, иммигранты, приезжающие на работу, нам помочь и обеспечить защиту, безопасность. Si ay mar walba qof anigoo kaleeto oo yimaado shaqo u yimaada ay u caawiyaan. Спасибо им большое. Aad ay u mahadsan yihiin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mahad leh. Waxaa runtii wax aad loogu farxaa in maxkamadaha iyo garsoorka jamhuuriyaddu uu soo jiito ama ay kalsoonidooda siiyaan dadka shaqeeyaha ah ka sokow ummadda Soomaaliyeed ee loo sameeyo adeegga garsoorka. Sidaas oo kale waxaan rabaa inaan fariin u diro dadka Soomaaliyeed ee dalka keensanayo ama ku casuumayo heshayaha in ay dhowraan shuruucda dalka isla markaana loo dhammaystiro waxyaabaha ay u baahan yihiin markay dalka yimaadaan lana ilaaliyo xuquuqdooda taasoo ugu dambeyn birayso sumcadda qofka Soomaaliga ah taasoo haddana sidoo kale dejinayso damiirka iyo dareenka ajaanibta si ay u kalsoonaadaan in dalkan kana shaqeeyaan wax kalna ay u noqdaan soo saarka dalka inuu saaran karo. Aad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.